الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين ضمان أهل كرمك إيو أهل شرفك خير بكي وجوه الرئي مايرك وفدك أو كم ذا وزيرك ولالكي وزير كحينك بيها حل بانضا متقنا خير بكي ميزان كله odayaasha cuqaasha dumarka oo aad mataqaana noo soo dhaweeyay dhamaantiin marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaanta ka bacdi aniga maanta waxa ii tahay farxad aad iyo aad u weyn wax aanu ku taamaynay oo riyo uu nagu ahaa ma rumoobi doontaa mise ma rumoobi aan isku haysanay ayaa ilaahay waqtigii wuxuu keenay inaanu soo dhagax dhigno maanta dariiqii baki oo aan ilaahay ka baryayno inuu sida ugu dhaqsiyaha badan leh inoogu dhammaado oo qofka ka tega magaalada baki iyo ruuqi ka soo baxaa ay ku gaadhaan dhowr iyo 20 daqiiqo ay ku gaadhaan boorama ka boorama ka soo baxaana intaa ku yimaado waaye qalabka la keenay maanta hay'adda SCF waxa ka shaqeyn doontaa wajahada sare ilaa dhuuso qurmuune ilaa laga soo gaaray buurta madaxeeda bay ka shaqeyn doonaan qolada kale RDA oo dawladdu ay hogaaminayso maareeyaha iyo wasiirku waxay ballan qaadeen inay ka shaqeeyaan halkan maanta inaanu soo qaadno qalabkaasaanu jeclayn hal su'aal baa ka timiday oo ah gaadhiga baldoosarka ee weyn ee dhagaxa jabiya inta badan wuxuu u baahan yahay gaadhi xambaara baa qaada inta badan marka ma soo mari karaa waxaa bohol iyo dhagaxaba ma soo mari karaa baa doodu ka taagnayd injineeradii imika wayna la socdaan qiimaynayay waxay ballan qaadeen inay bartaa keenaan waxaan doonaynaa maayarka marti uga nahay golaha deegaankana marti uga nahay in qalabka quwadda leh ina soo gali doona horta koow loo sameeyo goobay degaan waa marka labaade hanti wixii la siin karo waa marka labaade inamada shaqaalaha ah ee dirawal leh ee farsamo yaqaan leh ee qalabka inta leeg inoogu shaqeyn doono waxa u baahan yihiin soo dhaweyn dejin iyo waxa u baahan yihiin urquunkooda waxay marinayaan in aynu halkaa kaga ballan qaadnaa loo baahan yahay waynu awoodnaa waynu karnaa inaynu wax walba la qaban inamada si ay wax ka badan inoogu qabtaan taa waadi ka barannay golaha deegaanku ballanqaad aad u sharaf badan buu noo sameeyay oo yiri waan ka qayb qaadanaynaa waliba kabkan wax ka bixinaynaa golaha deegaanka ee Boorama uu ballan qaaday lacagtii dawladdu ay ku tala gashayna waan haynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa imika markaanu sidaa u cabirno waxaad u malaynaysaa markaaba wax milyuun dollar ku dhow inaanu hadda helayno aad bay niyadu noogu dhisan tahay inuu mustaqbalkaasi noo fiicayna waan arkaynaa waxay noo haray waxa weeyaan inaan ilaahay barino ilaahay noo hirgeliyo oo sida walaalaheena kale bulshaweynta Soomaaliland oo dhanba dhulka dariiqadooda ay u gaareen bakina maalin aynu aragno degdega waliba dhow ilaahay idinkii inagoo nool aynu aragno iyadoo dariiqeedii aynu ka baxayno aniga dardaarankaygu wuxuu yahay qalabka inamada dhisaya ummadda hal looga faa'iideeyo dariiqu wuxuu kaluu noqon doonaa 20 mitir buu noqon doonaa 20 mitir beeraha in laga durkiyo weeyaan beertii uu soo maraa waa inay aqbasho oo aanan awood iyo maamulka degmadu aanay la hadline damiirka qofku uu dira u yiraahdo maslaxadii ummaddan uga durugna uu yiraahdo waxaan doonaynaa gaariga ka soo dhaqaaqa Boorama inuu toos ruq intuu u galo wax alla wax inta la ka soo qaado dibadna barta ka soo baxo oo uu kala fireyn karo oo uu mari karo oo mar kasta ba la taasan doonaynaa
إلهي وحن كبريا تاسينو هيرجليو تكله وحن آذو أمانيا حل بانضا قلها الدجان كهرّه جوجا حل بانضا قلها برلمان كهرّه جوجا يجونا باركيا ورنميه هو أجادو مركز ديوان جلنتا از ديوان جلسان aad codkiina aad iyo aad u xoojisaan waliba dadka sharafta la doorataan ragga ay hor fadhiya harreyga jooga marka doorataan ogaado oo dalku horumar buu gaaraya haddii la isdiiwaan gelin waayo dee doorasho fiicanna ma dooran kartaan meel fiicanna wax ma dhigi kartaan sidaa awgeed waxaan dhiiri gelinaynaa walaalayaal da'da loogu talagalay qaangaadhka iyo intii ka sarreysay ciidan hore isku diiwaan gelin cid alla cidii looga faa'iideeyo dadka fog la keeno buuraha iyo dhulkan in qufulay oo dhan bal dul maro goobaha lagu diiwaan gelin laga dadaalo taasina waxay mustaqbalka idin horseedi doontaa reer Bakow inaad gacantiina iyo foodkiina iyo quwadiina adduunyada ku maamulataan oo tiraahdaan waxaan doonayaa halkaasaan wax dhigay aad tiraahdaan waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa shacab weynaha degmada Baki oo u horeeyaan maayarka iyo xildhibaanadu oo sida sharafta leh ee karaamada leh noo soo dhaweeyay cadceed ilaa maanta saacadaas oo casar ku dhow aynu halkaa u taaganahay mahadnaq dheeraad baan siinaynaa waad mahadsantihiin intaad noo sabarteen noo adkaysateen ilaahay baad ka baran khayr ka siiyo waxaan wadnaana waa horumarka aynu ka wada shaqeyno aynu heegan u ahaano aynu isku garabsanno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh